We the best. Another one. Titi Adde. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ani wa Muhammad Hassan YouTube ka daawanaysan waa Titi Adde. Meel walba dunida ka joogtaan si walba muuqaalkayga idin soo gaari doonana niyad samii kalgacal ugu soo dhawaada channelkayga waa ku mahadsantihiin daawashada fiidiyoda aan soo geliyay fadlan haddii aad ku cusub tahay ama ay ku tahay booqashadaadii koowaad ama aad subscribe la'aan daawan jirtid daawade waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarta channelka gambaleelka furto si ay ku soo gaaraan muuqaalada ugu dambeeyay fiidiyoga like saar aad iyo aad u mahadsantihiin intaas oo dhan lacag ma waa free sida caadi dhaqankeedna ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga hadlo Dirisla Cabdi fiidiyoogii heesta Jack waaye CK lahaa uu reaction-ka ka bixiyay waxyaalihii aan u arkay inay ka khaldan yihiin Dirisla Cabdi ayaa aniguna rabaa inaan halkan ugu falceliyo maadaama aan ahay qof mar walba fikirkiisa xorta ah idin la wadaaga marka inta aanba fikirkeyga iyo taladeeda ku darsanin marka hore aan idin daawadsiiyo oo ila daawada ninkii Dirisla Cabdi ahaa sisadu markaa ma diamond iyo waxaaba mise waa silver mise waa iska bir uun takala qof markuu si saaxanay ma garanaysaa amuusi soo iibsanayay. You need to shut the fuck up. ninkan Dirisla Cabdi la dhaho aqoona wada leenahay nin hadda aan baranayna ma ahan horaan u baranay waa nin mar walbo xaqiraada iyo inkiraada ay u tahay fast ama number 1 ninkan marna ha ka sugin in uu qof Soomaaliyeed ama qof bini aadan ah uu libin u ogolaado marka sidaa darteed weligiisa ninkan ma dhacayso in qof Soomaaliyeed uu ka hadlayo uu yiraahdo qofka waa good marka wuxuu iska indhatiraa wuxuu u jeedo in CK katiinadaha uu wata ay dheeman yihiin ayuu indhaha iska cabiraa wuxuu leeyahay ma dheeman ba ma qalin ba ma bira caadiya meelo kale la warwareeyaa laakiin wuu fahamsan yahay in katiinadu ay yihiin diamond maxaa yeelay diamondku isma qarinayo silverna diamond ma naqanayo bisadna dooli ma naqanayso mar kale bal ila arka ninkii Dirisla Cabdi ahaa Jack boy, everybody say Jack boy, Jack. والله ويلكن والله عايزتي وحاسمه دايما بايمك ساعات يا والله عايزتي كور حاس ولا عكر أدنى تكاتشور ساعات طلع سوي العايزتي صار حق ماما Dirisla Cabdi wuxuu leeyahay wiilkan wuu la cageystay waxaasi saacadaasi ma diamond ba hadday waxay aad katiinadu ma silver aad ma bira caadi aad hadda meeshii uu katiinadii iyo wixii uu dib u sixi lahaa oo dhila oo katiinada ileen diamond ayaan uu ka boodi saacad ayuu u dhacay marka katiinadaha iyo saacadaha wuxuu dhanba waa diamond wuxuu leeyahay Brulac wiilkan wuu la cageystay adiguna waad gaajoonaysaa xaq ma ahan sidaasna nimcada oo Ilaahay ku siiyay oo kugu raran hadii arki weyse dameer marab la saariyaad naqanaysaa markaan taas leeyahay ninka isku shaqo waayo hal meel ay mushaarka ka qaataan waana isdaba dhow yihiin waxa laga yaabaa mid in xoogaa horeeyo labadood Allahu wa'lam midka lacagta badan qaata ma cadeen karno ilaa akoomadoodii kuma dhex jirno balse labadoodaba waxaan ognahay inay lacag ku filan ay ka qaataan YouTube-ka haddana tan asiga uu ka qaato dameer malab la saaray ayuu ka dhigay tan CK uu qaatana wuxuu ka dhigay mid qof shakhsiya uu leeyahay runtii nolosha labada qof wuxuu u kala duwan yihiin ninna nolosha ku raaxaysanayso qofna nolosha ku raaxaysanayo CK waa qof reer magaala oo nolosha yaqaan oo Muqdisho ku dhashay ku soo barbaaray sida loo noolaado yaqaan ninkan waa ogtiin gobol ka yimid jigjigo ka yimid geel uu raaci jiray hadii la rabo baadiyo joogay marka nolosha asaasigeeda ma yaqaan waxa laga yaabaa in subaxdii gaxwo cabi jiray casirkii soor la sii jiray caano marka isku nolol ma ahayn markii horeba marka
ninkan sida loo noolaado yaqaana lacag kastoo la siiyo laakiin dirisle haddii hanti kasta la siiyo sidaasuu u qalalnaanaa marka baraada nolosha adigu ku nooshahay ayadaa kugu nool maanay adigu kuma noolid intaasaa difference kula tihiin marka nimcada uu ilaahay ku siiyey inaad aragtid way kuu fiicnaan lahayd maxaa yeelay ck waad ka hunguri badan tahay sababtoo ah ck 3 janaal ma qaba adiga 3 janaalaad qabtaa ck 2 jeer ama 3 jeer video ma soo geliyay maalintii adiga waa soo gelisaa ck dukaan dhar uma furna adiga uu kuu furan yahay haddana noloshiisu way kaa horumarsantahay marka loo fiiriyo horumarka iyo sida uu ck u socdo iyo habka uu u nool yahay iyo adiga habka mugdiga ah noloshaada ee mugdi u tahay hal qolaad fadhisaa noloshaada ma bedelin youtube-kaaga wax kama bedelin only shaatigii caddaa ayaa bedeshay laakiin noloshaadii kala dhan weli waa sideeda laakiin ck waxyaalo badan oo youtube-kiis ka bedelay wuxuu leeyahay mar walbo heerar kala duwan iyo horumar kala duwan ah hiigsanaa qaab kastaba ha u hiigsado asigaa iskale qaabku noloshiisa u horumarin lahaa laakiin adiga two option inaad mid qaadatid waa muhiim inaad ck dhahayd baraada noolow camaamadaada ma haysan karo intaa kadib sababtoo ah mar walbo waxaad soo qaadataa hees uu ck soo qaaday haddana heesta waad xaqirtaa oo ck ayaa waxaa u muujisaa inaad cadaawad fog u qabtid taasna ma ahan wax wanaagsan oo adiga kuu fiican maxaa yeelay maalin walba waxaad luminaysaa qof bini aadin ah oo adiga ku taageeri jira maxaa yeelay dadku dhammaantood caqliga ma wada la'a dad baa caqli leh oo fahmi kara habdhaqankaaga dadka aad qosolka beentaa ku sirayso waa ku fahmi karaan qaar badan soomaalidu maanta haddaa sirto beri way ku ogaanayaan marka mar walba waxaa isku daydaa in aad adigu qofka uu ku ahaanin target asiga shakhsiyadiis ah laakiin noqo qof fikirkiisa bulshada mar walba ula wadaaga si qurux badan hees baa reaction ka bixinaysaa ku ekaaw heesta in aad naqshadaysid oo qaabaysid oo aad ka hadashid muusigeeda laxankeeda heesta intaa inaad ku ekaastid taas waa muhiim sababtoo aan ninkan magacaagana ma qaado kuma raadiyo hoolaaga kuma jiro balse adiga mar walba magaciisa ayaa ku wardinaysaa weliba haddana libin uma ogolid tan kale adiga ck waxaa sii dheer tahay marka laga reebo youtube-ka aad leedahay dirisle cabdi dirishraad cabdi dirisle soomaali marka inta lasoo dhigo adiga weliba waxaa kusii darsatay tuugsi dadban oo aan ula jeedo lid ayaad furatay oo aad samaysatay oo aad weliba bulshada u sharxayso waa kugu qaadanay maxaa la yiraahdaa 3 youtube aad furatay waa kugu qaadanay all subscribe waa kuu saarnay haddaan nahay soomaali kuma aanan haqrin anigaa ka mid ah 3daada channel subscribe aan kuu saarnay okay kuwa ila midkaa sidoo kale waa qof Soomaaliyeed waa ma dhihin aw aqli madabaala ma dhihin 3 channel asiga la naga soo muuqdo oo kursiga cagaarka fadhiye muxuu noo sheegaa jiyaa soo hadashay iyo heblayan heshiinay iyo heblowa muxuu soo yiri iyo dirisla la soo caay iyo baad haddana noo keenaysay haddana ma aanan dheheen 3 janaal hal fikri hal tali hal kursi hal qol ninkan wax gooniya noo ma sheegaa 3 janaal sabab aan subscribe ugu saarnaa ma dhihin waa lagu wada saaray Soomaali madaxay ku saaratay waa kugu qaadanay daraas soo saartay magacaaga ku soo qortay dirisla cabdi waa laga gataa Soomaali maxamed way ka gadataa waa lagu camaamaday laguma dhihin fiyusaasina dharna waa ka gadanaynaa ninkan lacagteena u soo tashtay qaabkeena u soo tashtay laguma dhihin waa ka soo gudubtay lidaad furatay lagama daba hadlin ninkan muwaaliya lama dhihin lid ma sida cadan Soomaali loo furtaa ma dhihin weliba sharaxaada ku darto waxaa tiri lidkaas ka mid noqo member noqo dadka waxay arkinaad arkay waxa dadka ay arkeenin oo aniga aan arkay hadaan lid ku noqdo maxay tahay baraada sababta waxay tahay youtube-kaaga video kasto oo aad soo gelisid inaad bulshada u soo fasaxdid adiga dantaada ku jirtaa maxaa yeelay lacag ayaad ka sameynaysaa videoga marka adiga inaad bulshada public ugu soo dhigtid ku khasban marka waxa qarsoon maxay tahay
waad sharxaysaa waxaad leedahay member noqo commentiga markaa bixinaysid dollar ku fuul waxyaalo maala yacni ummadda ku gaday weligeena inta soo istaagay kuma aanan xasdin waxaa dheheen waa qof Soomaaliyeed oo hormaraya qaab kasta oo hormaraya horumarkiisa wato laakiin absolutely markii aad qof kale oo walaalka ah aad rabto horumarkiisa inaad lugaa ka qabato kaama yeeleyno sababtoo annaga qof kasta oo Soomaaliya oo horumar dhaqaaq ah sameeyo nama xanuunjinayso wayna farxad gelinaysaa sababtoo waxay tahay qofka dhaqaaqay waa Soomaali berito markii adduunyada ay nooga baahato qof kale ama wadan kale ka yimid inaan la tartansiino waa inaan u haysanaa qof aan geysan karno adiga naqataya aniga naqadaya siikay naqadaya qof kasta oo Soomaaliya horumar kasta uu sameeyo aniga way farxad gelinaysaa laakiin adiga way ku naxdin gelinaysaa tilaabo kasta oo siikay qaado waxaan dareemaynaa inay kugu tahay xanuun ama jiro marka heestiisa reaction ka bixinaysaa al-ultimate maxaa ku soo gabagabeynaysaa bal hal mar ila arkaba ninka Ilaahay baa idinku dhaariyay ma aqoontu weynaan ku bartay iskool miyaan la geenin asigoo yar dugsi mi soo dhiganin miya sida geelo ugu soo daba jiri miya Yurub la soo geliy ani waa fahmin waay bal ila arka markaan laakiin ana iga sugdina heesta dhegeysto wuxuu leeyahay aniga iga sugina inaa heestan dhegeysto maantoo dhan ninkay dhegaha ugu jireen oo jak waay ku hayay yuu ahaa intee ka dhegeysanaysid indhaha maa ka dhegeysanaysid afka maa ka dhegeysanaysid soo dhagaaga ma ka dhegeysanaynin cawaannimadu haddaad ku qaangaartid ama jaahilnimadu haddaad ku qaangaartid sidaan oo kale maxaa yeelay waxaa kaa soo haraya indha adeeg ummaddii dhan waxaad u malaysaa inaad adiga ka sareyso ka caqli badan tahay haddii ummaddii dhan ay ku sharaftay waxaa u malaysaa ummaddii dhan inaad adigu ka heersaraysid laakiin waxaasoo dhan waa been haddana mar kale heestii ka horeysay oo muxuu kusoo khatimaa haddana bal ila arka bal ma dhegeysan heesta dhigaa oru jeclaa anigu ma dhegeysteen uu yiri ilaahay runta jecel maa ani ma dhegeysteen heestan okay haddaad dhegeysanaynin why maxaa ku daba dhigay aniga YouTube ay furan CK-na ma soo qaadanin cid igu khasbeysana ma leh fardayna ma aan inaan CK heestiis reaction aan ka bixiyo cid xoog igu leh ma leh aniga chosen garay karo aniga iska day karo laakiin adiga farli ma kuga why maxaa ka rabtaa maxaa u soo qaadanay marka adiga two option mid qaado dirisle dadka kama aqli badnid baadiya ka timid magaala ku dhalanay magaala ka nimid nama qaldi kartid hortaa iskool soo dhiganay hortaa dugsi quraan soo fariisanay markaad waxara raaci jirtay anagana buug iyo qalin aawadani marka nama qaldi kartid baraada laba option mid qaado marka inaad dhahdid CKO waa seegareey turubkan keep going hore u soco horumaraad gaartay sababtoo waa CK 100 milyan oo views oo kugu kor gaaray 1 million views reaction YouTuber Soomaaliyeed oo sameeyo ayuu videogiis gaaray ninka lugaha leh ma ku dhignaanay iska fasax ama miya ka aamus oo afkaaga ka qabsay heesiis faraa ugu qaad wax reaction laga bixiyo way badan yihiin asiga dan iska xirsido kitaabkaaga u laabay maalin bakinkisiga meesha noo soo fariisanaya camaamad malihid brother baadiyaaga iska aad ama miya lacagta ku aruurtay masaajid jigjiga ka gado oo aad kaligaa ka tugsato maxaa yeelay sidaanba tugsi dadban iyo tugsi fidsan intaba waa nugu waashay maxaa yeelay lid qof hadda Soomaali u furtay waa tugsanooyaa waa tugsi oo reer magaaleysan leh waay lacag isii fiyuusan ku siiyey waxaa iga rabtaa haddana $1.99 inaan bangigeyga kaaga diro adiga taas waa micneheedu waa tugsi marka waxaan ku leeyahay xifaaltan ma geli kartidee lacagta hadda kuu aruursan waxaa inta la laabatid jigjigid masaajid weyn ka furo salaad kasta markii laga baxo ka istaag adile ka tugso qof kale inuu ka istaagi karin u sheeg dadka ilaan waxa intaas inda adeeg ilaan hadda buu nugu haysaa inda adeeg kan ka badanne ma keeni karto marka saaxiibo waxaan ku leeyahay CK walaalkaa waay libin u ogolow si aniga inaan libin adiga kugu ogolaado walaalaha kale Soomaaliyeed ee libin kugu ogolaadaan
kumentiyada aad soo qaadatid adiga isku soo qortid dadka kumentiyada aad meesha soo saartid waa waxa aad qortid waa la ogyahay gmail-aad ku isticmaashaa Sacdiyo gmail-aad ku isticmaashaa Faarax magacyo badan ayaa dadku ku soo caysaa jiro meelaha aad reaction-ki Drisle ninkii sugaayo meelaha ka soo dhahdaa jiro waa ku camaamadni dhowr jeer ayaa isku daynay inaan ku camaamadno laakiin camaamad ma lihid brother camaamad ma lihid qofka hadduu qof walaalkiis rabo inuu xaqiro kuma taageerayi aniga ben xaaraan ben xagga iga dhigay haddiiba aa qof walaalkaa libin aad u ogoleen anigana libin kuma ogolaanay sababtoo ah qofku la xifaaltan laakiin naceeb shakhsiyadeed xaraam waa CK aniga inaan la xifaaltamo waxay ka khaldoon aan u sheego waa wax normal ah laakiin CK naceeb shakhsiyan uma qabo maxaa yeele soomaalinima naga dhaxayso islaamnima naga dhaxayso tilaab kastoo horumar uu gaarane aniga ima xanuunjinayso waa ku farxaa adiga tilaab kastoo oo horumar gaartay ima xanuunjinayso waa ku farxaa adigana sidaas ayaa laga rabaa maalin walbo ayaa dad Soomaaliyeed rabtaa inay xaqirto last Kamal Abdul Mal wiilka Malaysia joogo ayaa ma garanayo isku heesateen xaqiraada heerka leeg iska daa baadiye adoo ka imaade ayaa rabtaa dad inay xaqirtid sawaaya brother dadkii muqdishaawiga ahaa dadkii magaalo jooga ahaa dadkii ciyaal xamar ahaa arabtaa adina inkirtid maxaa kugu dhacay gaabo shumayo wallah adduunyo waxaa la nin joogo maxaa aragti ku laaban nin geel qorxay iyo jigjiga dhaxdooda geel ku raaci jiray aroomaanti inuu adduunyadan kugu adkeeyo ilaahay amarkiisa ku dhacday video intaan ku soo gatani kulantideena dambe niyo sidaan isku dhaan nin weyn tahay saan isku dhaan